muxuu yahay heshiiskii Balfour? 2 November sanadkii 1917 wasiirka arrimaha dibadda ee Britain waxa uu warqad u diray hogaamiyaha xarakada Yuhuudda ee Ingiriiska degan ee soo hogaaminaya Lord Rothschild. waxaa ku qornay heshiiska sidan dowladda Ingiriiska waxay taageerada ku siinaysaa inay samaysataan waddan Yuhuud gooni ah kaasoo Falastiin laga dhex sameeyo. wixii intaas ka dambeeyay waxaa loo yaqaan heshiiskii ama saxiixii Balfour. heshiiskan waxa uu khilaafsanaa qawaaniinta dawliga iyo xuquuqda aadanaha. sidoo kale heshiiskan waxa uu isku dhac u keenay carabta iyo dowladda Ingiriiska. guud ahaan heshiiska waxa uu banaanka soo dhigay beenta iyo khiyaanada Ingiriiska dhulka Falastiiniyiinta u baahay. heshiiskan waxa ku caddaa in Ingiriiska ay ka go'an tahay inuu Yuhuudda dhul dejiyo. heshiiskan waxa uu gundhig u ahaa qaadashada dhammaan dhulka Falastiiniyiinta. heshiiskan waxa ku qornaa dhammaan dhulka in laga wareejiyo Falastiiniyiinta iyadoo gacanta loo gelinayo Yuhuud. waxaana loo ballan qaaday sidoo kale Yuhuudda in la soo daabuli doono meel walba dunida ay ka joogaan iyadoo Falastiin la keenayo. iyadoo laga gaabsan doono dhammaan dhibaatooyinka Yuhuudda Falastiiniyiinta ay ku hayaan. inta Yuhuudda ay ka xogeysanaysana waxaa ilaalin doona ciidanka Ingiriiska ee gumeysiga ku haysta Falastiin. Yuhuudda waxay burburiyeen 220 xaafadood oo Falastiiniyiinta ay degan yihiin iyadoo weliba goobjoog ay ka tahay Ingiriiska. waxaana loo aqoonsaday heshiiskan heshiiskii khiyaanada iyo boobka dhulka Falastiin. ugu dambeyntii sanad walbana Yuhuudda waxay u dabaaldegaan heshiiskii Balfour taas oo ay ku heleen dhul ay u madax bannaan yihiin.